gudoomiyaha xisbiga mucaaridka wuxuu Injineer Faysal Cali Waraabe oo saaka dalka ku soo laabtay waxa uu sheegay inuu maanta dalku marayo meel aanu weligii filaneyn inuu gaari doono isla markaana maalinta Sabtida ay labada xisbi mucaarid go'aamo iyo xog wixii ay hayaan shacabka u soo bandhigi doonaan gudoomiyaha oo arrimahani ka hadlaya waxa hadaladiisii kamid ahaa maanta war badan idin maayo dalka maanta hawlku marayo marxalad aan islahayn weligii yaalihi dalku uu mari doonaa qiimaha dalku maraya gudiyo dibadba warwar weyn baa dadka umadayna haysta shacbigeeni allah insha allahu tacaala sabtida in labada xusbi aanu wada fadhiisano xaaladda dalku marayo inaanu go'aamo ka soo saarno xog taanu hayno aan la wadaagnan jecel insha allah shacbi weynaha reer Somaliland marka maanta intaas baan isku dhamaysanaynaa sabtana insha allahu tacaala aanu qaraarada labada xusbi waxaan labada fulineed ay shiraan xusbigu waa arrimaha gudaha iyo dibadda dhaqaalaha nabadgelyada wadanku halku marayo maanta aanu insha allahu tacaala aanu ka soo saari doonaa go'aamo aan jecelahay inaan umadayda baraarujino aanu update gareyno halku dalku marayo ayaan sheegnay markaan saasaan ka dhigan doonaa insha allahu tacaala waa inoo sabtida insha allahu tacaala Cabdiraxiin Muuli Ismaaciil shabakada wararka News magaalada Hargeysa.